hadlaynaa COVID-19 impact on Somali communities with special attention on women and families. And taasoo aynu insha Allah kaga hadli doono sida ay COVID-19 cudurka caabuqa loo yaqaano ama coronavirus ay u impact garaysay ama ay u saameysay community-yada Soomaalida ah oo ku nool daafaha adduunka. waxaad joogtaan meelo kala duwan qaar bay waxay u tahay habeenbadh marka kulligiin khubarada nagala soo qayb gashay barnaamijkan doctorada kala jooga daafaha adduunka meel walba ay Soomaali joogtaba aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga oo aadna siisaan COVID-19 haddii in yar aan macluumaad idinka siiyo sidaynu ognahay 4 ilaa 5 bilood ugu dambeysay COVID-19 daafaha adduunyada ayuu qabsaday hay'adda WHO waxay sheegtay in ilaa 5 milyan oo qof uu saameyn ku yeeshay in ilaa in ka badan 300,000 oo qof ay ku dhinteen in uu ilaa hadda cudurkaas ku faafay ilaa 203 dal oo adduunyada ka mid ah Soomaaliya adduunyadaas ayay ka mid tahay uu caabuqaas ama coronavirus-ka uu runtii saameyn badan ku yeeshay haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed oo daafaha adduunka ku nool ama aynu ku noolaana Soomaaliya dhexdeeda ama hala jooga diasporada dadka loo yaqaano jooga Yurub iyo wadamada maxaan ku rahdayay adduunyada ku kala faafay ama dadka ku nool maxaan ku rahdayay campska ama refugee campska sida Dhabaab oo kale kulli saameyn buu inagu yeeshay dad badanna wuu inaga dilay runtii ilaa haddana lagama soo kabanin waxaana laga shaqeynayaa sidii looga soo kaban lahaa ama sidii loo keenay xalal lagaga gudbo cudurkan sidaa daraadeed ayay muhiim noqotay maanta inaan isugu yeedhno haween dumar wada khubaraa ah experts ah dhakhtarro u badan inay ka hadlaan COVID-19 saameynta uu ku yeeshay Soomaali meel walba ay joogto muhiimaddu waxay tahay in maanta aynu ka fiirino meel dheer cudurkaasi saameynta uu inooga yeeshay xagga caafimaadka iyo xagga waxa loo yaqaano social determinants of health marka waxaa jira waxyaalo badan oo Soomaalida u gaara oo cudurkaasi uu faafintiisa ama saameyntiisa ay inagu yeelatay aad baan idin soo wada dhaweynayaa kulligiinba runtii aad baad ugu mahadsantihiin waqtigeena qaaliga aadna siiseen waxaan hadda ku soo dhaweynayaa Dr. Maryan Qaasim oo ina siinaysa opening remarks-ka ku soo dhawow Dr. Maryan Qaasim BDRC waa center cilmi baaris xarun cilmi baarisa xaruntaas waxaa la asaasay ama dhidibada loo taagay 1900 way 20 jirsatay waxay haystaa khibrad 20 sano la ururinayay marxaladihii wadanka uu soo maray mar walba 20 sano waxay qabanayeen BDRC tababaro waxay qabanayeen waxay qabanayeen conference-yaal shirar howlahaas oo dhan policy advising waxay aad diiradda u saareen 3 qaybood oo ah dhinacii peace building ama arrimaha nabadeynta arrimaha governance-ga iyo maamul wanaagga iyo dawladaha arrimaha economic development-ga iyo environment sustainability howlahaasay ka shaqaysaa laakiin waxay xoogga saartaa mar walba dumarka iyo dhalinyarta shirkan hadda oo COVID iyo BDRC waxay ku dadaashaa mar walba waxa socda markaas مثلا hadda caalamkii waxaa qabsaday COVID-19 waxay sameeyeen hadda conference-kan waa kii labaad ee Zoom-ka midaan la qabtay bay ana waa midkii labaad waa idin soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad aan idinkaga mahadnaqayaa shirka maanta waxaa noo daadihinaysa oo noo jeegarayn doonta Yaasmiin kanna waxaan isaga dhaxbaxayaa idinka iyo Yaasmiin soo dhawaada aad iyo aadna waad u mahadsantihiin Dr. Maryan Qaasim aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma sha Allah tabarakallah maxaan ku raahday background-ka aad naga siisay BDRC iyo macluumaadka aad nala wadaagtay hadda waxaan u gudagalaynaa barnaamijkii waxaan jeclaan lahaa inaan su'aasha ugu horeeyo oo ka hadlaysa dadka Soomaaliyeed haddii aynu Soomaalinahay waxa jira dhaqamo badan aynu leenahay oo saameyn ku yeelan kara cudurkan COVID-19 ama caabuqa waxaan jeclaan lahaa inaan la hadlo dhakhtarada jooga Soomaaliya oo ay macluumaad yar naga siiyaan habkeebay dadku cudurkaasi ula tacaaleen inagoo
isxasuusinayna inaynu leenahay dhaqan inoo gaara oo runtii laga yaabo cudurka inuu dadka ku sii faafiyo ama ay cudurka dadku ay maxaan ku idhaahdayay iska ay kaba bogsan waayaan dhakhtarada jooga Soomaaliya ayaan rabaa inay inala galaan garan maayo cidda ka joogta dadkii Muqdisho joogay ku soo booda oo su'aashaas halka ka qaata Soomaaliya sidee buu caabuqu u saameeyay yaa nagala jooga Soomaaliya xaaladda COVID-19 iyo wadanka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka koonfurta ah oo aan ka howlgalno runtii xaalad aad u dhib badan oo ma aha aad u daran waxaa jirtay dabayshu markii kow ay timid in xoog loo hadal hayay oo aan dhihi karna xitaa in xoog loo buunbuuninayo ilaa heer uu gaaray tviyadii la iska radiyo oo la iska mucaarado la yidhaahdo ma jirto ma aan dadka noocaas dadka oo dhintay nambarka noocaasaa dhintay waa been waa khalad iyo nambarkaasaa dhintay haddana uu haddana iska xasilay oo nobody is talking about COVID-19 at all xaaladaha uu wadanku ku sugan yahay khaasatan koonfurta oo caasimadda ugu horeyso waa xaalad caafimaad oo aad u liidata waa ognahay ma lihin policy caafimaad oo xoog badan ma lihin siyaasadda oo aad u degan oo dhanka caafimaadka ah hooyada iyo dhallaanka markii aan usoo laabto aad iyo aad iyo aad ay u adag tahay in la dhaqan geliyo waxyaalihii looga baahnaa in looga hortago COVID-ka fididiisa iyo la tacaamulkiisa waxaan saamaxaynay dhaqaalihii waxaan saamaxaynay cultureki waxaan saamaxaynay wixii ay dadka aaminsanaayeen maaha inay diinta islaamka ku aaminsiinaysa inaan cudurrada qaar ahayn kabirto laakiin wax isbiirsaday oo aanan diin ku salayn karin laakiin iska culture ah dadku way neglect gareeyaan balida cudurka ama ciidaadeen la soo taagan yihiin qaarkood xitaa naguma dhacayo iyagoo og number aad u fara badan oo Soomaaliya inay ugu dhinteen qurbaha khaasatan London Sweden haddana way waafajin waayeen labadaas ala kulli xaal xaaladaha ay ku sugan yihiin dhaqaale amni siyaasadeed shacabka Soomaaliyeed khaasatan caasimadda iyo nooceeda ma ka hirgelin san xirasho kama hirgelin gacmo dhaqasho kama hirgelin kala fogaansho dabaylu ahaa in uu yimid xooga loo qaado loo hadalay haddana hal mar qadka ka baxay waxaan u moodaa in dawladdu nafsigeeda ka qayb qaadatay oo la iclaamiyo waa yimid haddana la iclaamiyo waa baxay waana wax غير caadi ah virus ilma aragta ah in aad tiraahdo it comes and then aad tiraahdo must be out waxay nagu noqotay qariib waana waxyaalaha aan ka kaman laanahay markaan u soo daadega dhanka hooyada iyo dhallaanka wuxuu aad u saameeyay hooyooyinka uurka iyo hooyooyinka nuujinaya psychology ahaan waxaan ku dhibtoonay inaan ka dhaadhicino horta viruskan maadaama uu yahay wax mid ay ku socoto waxbarasho oo adduunkii uu baranayo wax cusub uu yahay still they are learning maalin walba wax cusub soo baxay waa ka warqabtaan Italia waxay ku jirto khudbadii aadka ugu leedahay bishii March kadib markii ay autopsiyooyin ku soo bisay meydadkii waxa u soo baxday wixii ay daaweynayso waxaan hayn inay ahayn dadkiina u dhinteen marka saasa ay ugu socotaa waxbarasho iyo daraasayn wali daawaduna ay mar walba qolobo wax ku tijaabinaysaa China oo ugu horreysay waqtiga bukaanka u qaybisay laba qaybood ay qayb dawo ku tijaabisay inkastoo labadaba ay jawaabeen haddana way kala badnaayeen jawaabistiisa صح dalka waxay aad u isticmaaleen mananiga Muqdisho witness ka ahay daawo dhaqameedyo iyo daawo dheeraadyo dheeraad iyo dhaqameed wixii lagu tilmaami karo garan maayo waa aad u jeclaa inaan masawirkan sii raadiyo waxaan rabaa inaan hadda idin tusiyo daawada aadka looga isticmaalay Muqdisho $10 ay ahayd qiimaheeda oo ay ku leeyihiin because they believe waa ku bogsanay waana noo hirgashay hooyooyinka uur kale aniga markii ugu horreysay uu soo galay corona TV-gan kala hadlay media aan isticmaalnayna waa social media iyo telefishinada waxaana u sheegay inaysan ilaa hadda aan lahayn in viruskaas uu ka gudbi karo mandheerta oo ilmaha u gudbi karo marka isdajiya hana u arkina inuu dhibaato ilmaha u geysanayo xataa nuujinta kama gudbaya caanaha oo ilmuhu nuugaya dhawaan hadda bishan July waxaa soo baxday daraasad la sameeyay ilmo dhashay oo laga helay COVID صح marka
markii kow uu covid-ka soo baxayn ilmo mataana ahaa oo waxaa jira hooyadu ay positive ahayd oo iyagii laga waayay weli marka waxaa ku socota daraaso aniga BDRC oo markii igu horreysay maanta aan ka soo qayb galay aad baan u danaynayaa center sidaan oo kale oo research sameeya oo aan wixii oo dhan ku soo gudbino wixii aan doonayn inaan baarana aan ka bilowno aan laftigan ka qayb qaadano inaan baarno aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay halkaasaynu ku dhaafaynaa aad baad u mahadsantahay macluumaad badan baadna siisay Soomaaliya halkaasaynu ku dhaafaynaa waxaan la hadlaynaa hadda aan ku soo dhaweynayaa Dr. Fawziya Abraar oo joogta Mareykanka Soomaalidu waa Soomaalidii Soomaaliya ka timitay waa imika waxay dhakhtaradii igu horreysay ka sheekeynaysa dhibaatadan haysatay waxa weeyaan aniga kan iguma dhacayo ilaahay hadduu yiraaho igu dhacaya waa denialka markuu ku dhacana wuxuu bahalkii stigma ku dhaco guriga baa la isku qarinayaa marka dhibaatada naga haysata waxa weeyaan tan imika Mareykan oo dhan bay haysata African American community engagementkii wuxuuna aad u galay Soomaalidu wada ogtay foundationku inay tahay dumarka oo dumarku shaqeeyaan dhibaatada markaa ku dhacday dumarkii waxa weyn waxa imika ka hadlaysay social determinants marka imika intii ani ugu dambeysay waxaan ka hadlaa patientskayga waa virus cusub mana joogsanayso ilaa inta vaccine la helo ama 70% herd immunity in wada infection by kulli way nagu wada dhacaysaa waxaan rabaa inaad sameeysiin waxaan u bixinay COVID-19 lifestyle modification bahashani waxay ataagaraysaa immune systemka marka immune systemkeena seen u boost gareynaa marka waxaan bilaabnay inaan imka u wacdeen ku niraaho waa inaad sameeysiin diet bedeshin bariiska iyo pasta oo cuntid cunooyinkan immune boosterska fruitska vegetables leguumka akhtarka waxaana ma ay aad u jeceliin ku boogtahay exercise waxaan bilaabnay inaan niraaho war guruuyo bilaaba inaad 30 minute shan cisho isla lugaysiin waxaan bilaabnay wax la yiraahdo vitamin D supplements marka lifestyle-kii qorraxda inaad tagtiin exposure-ka islaamaha odayada inta badan sigaarka iska joojiyaan inaan mainly bilaabno plant based diet hilibka badan baastada badan taasi wax inaga caawinaysaa cudurradii dumarka inta badan halkan xitaa u dhintay dadkii yaryar markuu ku dhacay way ka kaceen xumad yar baa ku dhacday waan ka kacnay bay yiraan dadka ku dhintay waa dadkii pre-existing conditionka ama diabeteska ama halkan markaa nimidna dadkii way wada naaxeen marka haddaan modify garayno lifestyle-ka oo immune-ka boost garayno waxa weeyaan diabeteskina waa uu ka tegaya ama hypertension-kii marka social determinants kala sida laakiin dhibaatada walaal naga haysato waa wax la yiraaho engagement iyo denying iyo inaan ku niraahno waliba imika wuxuu soo galay dhalinyaradu soo galo ku leenahay war hooyada war aabaha waxa arkaysaa oday leeyahay wuu dhinto waxa u keenay inaan ba u keentay waxa u keentay inaan ka shaqaysta nurse marka waxaan leenahay ininku weyne baalmarayna waa inaad protect garaysid dadkiina vulnerable ah oo markaad baxaysiin mask iyo gacmihii la dhaqay iyo wixii oo dhan moolasha imika moolal Soomaaliyan leenahay waa la tagaa social distance ma jiro aroos weyn baa la ii sheegay aroosadii sidii baa loo tagaa marka denialkii iyo taasa aad noo haysata haddaan ka hadlo xagga COVID-19 horta boosaaso waxay ahayd markii laga hadlay yani COVID-19 uu soo galay waxay ahayd gobolka yani magaalada oo preparednesskii aad iyo aad u dambeeyey oo intii muddo ah ma aanan helinin yani waxyaabihii loo baahnaa ama waxay ahayd isbitaalaadka la geyn lahaa oo ah PPE ama isolation area ama testingka laakiin hadda alxamdulillah after struggle intiiba hadda yani isolation area waa la helay maxaa la yiraahdaa testigiina waxaa la bilaabay 22nd June baa la bilaabay marka haddaan ka hadlo intaan dumarka u gudbinin cudurka sida uu yahay magaalada Boosaaso hore badanaa dadku way ka baxaan because aad iyo aad bay u kulushahay marka waxaan aragnay isbitaalaadka dhan waa iswaraysanaa populationka yani waxay ku leeyihiin waxaa iga tegey urkii baa iga tegey dhadhankii baa iga tegey waxay ku leeyihiin qandhayar baan isku arkay laakiin wax caseski si fiican yani symptomskii
complete haysta ma aanan arkinin wax u soo dhacay oo u jiran oo yani aad iyo aad la yiraahdo qofkaanito case management u baahan yahayna soo far hadda maanta la sheegay halkiis inuu ku jiro marka dadku aad iyo aad yani denial sida meel walba loo sheegayo social distance ma dhici karto halkaanito la dadku iska xamaalinayaan maxaa la yiraahdaa cudurkiina waa ogtahay Soomaalida cudurrada qaarkood sida TB-da HIV-da kulli waa la deny karay waxaa la yiraahdaa ma qabo marka COVID-19 wuxuu ka mid noqday sidoo kale in asagana la yiraahdo ma qabo hataa qofkii asagoo kulaha symptomskaas aan isku arkay ma baxda maya saamaxda maya لكن الحمد لله mind أهان بدك أوقع وما أنا أكيد دك أو serious حق الدمر كده أيها bread winners وما أنت محدد هذا ميربو فدية هو يعني كذا يقراتي وكذا يقاتي وكذا محدد هذا مركا يعني سامي وين حق التقالة بكقبصتك وعقبتها أن قبصتي كوزارة دهان بنجعلان لها إن كبلابو MPB في دنا ما شاء الله go ahead ها كسعود dhammaantiin waa wada ogtihiin sida Dr. Caasha ay sheegtay Caasha Kablow ay sheegtay haddaan saxanahay systemka iyo policyga iyo economic infrastructure-ka waddanka wasiir Maryan Qaasim oo wasaaradda wasiirka iyo dhammaantiin waa dareemi kartiin caqabada ay wajihi karto dawladda Soomaaliya markii COVID-19 uu bilowday heer shaqaalihii joogay centerka ee wasaaradda caafimaadka ee nagu yaraadeen federaalka iyo isteediyada intaba oo aan is abaabulin oo ay dhamaatay intii warkaas aan ku shaqeynay laakiin ay noqotay qof walba expertigiisa iyo wuxuu hore u bartay iyo sections kala duwan in la isku attach gareeyo wal badan iyo badan ayaa anaga wasaaradda ahaan na taabtay waayo waa dareemi kartaa marka ummadda Ilaahay oo dhan ilaa federal member states oo dhan ay ka wardhowrayaan dhagaha wasaaradda oo la leeyahay wasaaraddii maxay qabatay wasaaraddii maxay soo kordhisay maxaa information ah waxaan jeclaan lahaa in bilaabo mas'uuliyadda ugu horeysay oo inaan qorno oo aan diyaarino Somalia contingency plan for COVID-19 response inaan planka diyaarino oo dhammaan UN-kii waxaan ka shaqeynayay expertiska Soomaali intaan heli karno oo aan ka tilmaami karo Dr. Fujire iyo Dr. Lul iyo Somali Medical Association all the way state levels inaan sameynay consultation weyn hotel jadiila inaan managernay oo diyaarado special intaan kareysanay dhammaan wasiirada including Portland State wasiirkooda ay noogu yimaadeen Muqdisho waxaan diyaarsanay oo aan dhameynay si degdeg ah contingency plan-kii waddanka technical staff-kii wasiirada la shaqeynayay baan ka mid ahaa waxyaabaha ugu waaweyn oo diiradda saarnayna wuxuu ahaa inuu waddanku yeesho testing capacity inaan ku dadaalno priority number 1 ay noo noqoto in dawladda Soomaaliya dhihi karto intaas qof buu COVID ku dhacay istiraatiijiyada aan qaadanay waxay ahayd waa dareemi kartaa lacagta badan oo loo baahnaa iyo xataa waxyaabaha aan aragnay hadaa lacag haysato xataa testing kits-ki adduunka la kala boobay markii ugu horeysay oo wadamada iska masaakiinta inakoo kale la kala boobay oo dawladaha aan la xiriirno Turkiga kale warshadahooga ay nagu dhaheen waxaan u kareysanahay Mareykan for the next 2 months إلا all the way USA حتى العاوني وأدركيسين إن supplies لوجيني imagine ودنكيني مركب وعقبتها دركتين أي نهيستين كدولة دهان استراجل بدن بنموجناي حالات أدق بنكوش قيناي وحن كقولي سنة إن المقدسة كاستابلش كرينو the National Riviera Laboratory for Testing Capacity وحن كقولي سنة إن كانوا experts أو أجانب هاي إن توبران إذن كان خاطر وإيجا بديا محلها diagnosis medical diagnosis لكن وحكو بوليسين PCR machine كنا functioning كديكنا إن الدولة بوستس كشفتوا وزارة إقامة تليركا تعمل testing capacity هذا وحن لنا هاي testing capacity بدن وحن ويا لهذا كان هرجيزة وحن يسنا برعو وحن يسنا بوساسة سيد دكتورين أي شيء يسوي أيضا عن حسوس استراجل بدن إن كمرناي establishment كذي sa ogtihiin ba xanuunkan wuxuu aad u saameeyay dadka laga badan yahay minority-ga African American-ka iyo Latinaha xagga US-ta anaga Soomaali hadaan nahay waxaan ka mid nahay dadka aad u saameeyay markii la fiiriyo determinant of health ama ha ahaato poverty-ga ama ha ahaato lack of access-ka oo education iyo caafimaadka environment-ga lagu nool yahay pre-existing conditions waxaasoo dhan laakiin waxaa noo wehdiyay oo nooga sii darnaa
communicationka oo aad noogu liitay oo waxa weeyaan waxay dawladdu dadka u sheegayso iyo wacyigelinta resource looma samaynin dadka minority-ga ah oo luqadda Englishka aan tooska uga hadlin lagu gaaro marka dadkeena Soomaaliyeed oo wadanka shaqeynaya ay waxay dusha naga fuusheen annaga dadka wacyigelino si waliba xogaa disenfranchised oo kala yara maaragtay aan level dawladeed ahayn small agency level ah calaamadaha ay sheegtay Dr. Abraar iyo kuwa adinka dhan sheegteen baan halkan kala kulannay oo runtii aad aan ugu wareernay dadku waxay leeyihiin annaga ilaahay baa noo qadaray marka fallacy oo qadartii ilaahay iyo diyaargarowgii qalad laga fahmay culimada ayaan aad u kaalmaysanay oo culimada waxaan abaabulnay holistic approach oo culimadu ay nagala qayb qaadanayaan si aan uga hortagno misconceptionkaas waxaan kaloo aragnay oo haayo waxaan la shaqeynay wasaaradda caafimaadka aad ula shaqeynay waxaan idhi nambarada na siiya Soomaalida gooni noogu soo saara waxaan u baahannahay disaggregated data oo aan ku ogaano maadaama minority aan nahay sida bal annaga ay noo saamaysay hawshaas marka ma jirto mechanism ama qaab lagu soo saaro daytadaas marka waxay sameeyeen inay gacanta ku soo tiriyeen magacyadii Soomaalida oo laga helay ilaa hadda daytadii June wali nooma soo bixin laakiin dadka tagay oo ama isbitaal galay oo tasdigareeyay inta dhimatay oo Soomaalida ah oo haayo nawaaxiga Columbus City waxa weeyaan dadka uu ku dhacay ilaa 600 oo qof ilaa waxa uu dhimatay 10 qof hadda 7 la konfirmeeyay ilaa 3 gadaal bay ka dhimatay hadda June marka waxa way aad noo saameeyay marka runtii waxyaalaha ugu daran waxaa weeye Mareykanka oo loo haystay wadanka adduunka maaragtay ugu awooda badan dhan walbaba ama dhaqaalaha noqoto ama ha noqoto maaragtay cilmi baarista ama dhan walbaba yaa waxay noqotay inay runtii muddo dheer qaadato in la helo waxaa la leeyahay protective macnaha personal protective equipment ama waxyaalaha la xiranaya marka qofka jiran lala kulmo sida ama maaskiga sanka ku dadanaya respirators la xiranaya ama wixii kale oo dharka ahaa qofka laga xiranaya oo ka ilaalinaya qofka cudurkaas inuu ku dhaco marka dadka horjoogayaasha qaasatan nurseska yaa runtii dhibaatada ugu weyn ay gaartay taasna waxay ku tusaysaa macnaheeda inayna ahayn wadanku uu awood badan yahay ama xoolo badan buu leeyahay dhaqaale ahaan buu ka dhisan yahay ama horumar buu gaaray inayna maaragtay viruskan aynaba marnaba ayna ka turjumin waxaa dadka qaar waxay yiraahdaan cudurkan wuxuu ahaa cudurkii dadka simay haddaad taajir ahayd iyo haddaad faqiir ahayd haddaad weyneed iyo haddaad yareedba rag iyo dumarba dhammaan dadkii oo dhan maaragtay isku sibuu runtii u taabtay marka dadkaas runtii dhibaato badan baa dhacday oo aad nurseska sida ariga qaasatan xataa waxaan xasuustaa dhaqaatiirta qaarkood New York oo kaleeto dad baa xataa dhakhtarad baa isdishay markay u adkaysan weydeen dhibaatada meesha ka socota sababtoo qaasatan waxa ku dhacay dadka laga badan yahay ama minority-ga la yiraahdo sida dadka madowga ah annagoo kaleeto African Americanska ama dadka Latino ka soo jeeda dhinaca Spanishka dadka soo gala South America iyo ka soo galay Central dadkaas runtii dhibaatada ugu weyn ee soo gaartay dhibaatadaasna markay gaartay waxa dhacay waxay ahayd xataa waxaa la ogaaday da'da qofka da'diisa inay lug ku yeelato hadduu qofka weyn yahay uu qabo cudurrada kaleeto la leeyahay haddaad weyn tahay ama cudurrada underlying macnaha aad qabto sida diabetiska iyo cardiovascular condition iyo waxyaalaha la midka ah ama asthma iyo dadkaas oo kale xitaa inaan la siinin macnaha wixii loo baahnaa in la siiyo oo aan qaasatan si gooni ah loo fiirinin runtii ay noqotay in waqti badan la geliyo dadkii yaryaraa ama dadkii la lahaa xoogaa weerarladay marka xoogaa waxaad moodaa in lagu tacadiyey dadkaas marka nurseska iyo dhaqaatiirta dhibaatooyin badan bay la kulmeen dadka basaska wado marka runtii aniga markaan dhan walbaba ka fiiriyey waxa ugu daran oo maanta in la sameeyo loo baahan yahay mar walbaba ma aha macnaha in qofka la daaweeyo waa in laga hortago marka ka hortagga prevention waa waxa ugu muhiimsan
runtii Sweden wax inta gabdhaha waalahay ama Soomaaliya ha ka sheegan ama Mareykan ha ka sheegan waa waxa ka jira Sweden Soomaaliya waxay ahayd dadka ugu horeeyay markay disaggregated data ay presentation dawladdu inay ahayd Soomaalida dadka ugu badan oo u dhintay COVID-19 waxaa soo raacay dadkan Carabta ka yimid ama Ciraaq laakiin Soomaalida u horeysay dhimashada nimanka ay ku badneed sida meel kasta koor oo maartay whatever reason uu yahay all the factors han noqoto ma denial attitude-ka ha ugu badnaado iyo maartay la diidan yahay waxaan anagu mamnuucay kuma aan cilnaay because gabdhaha waalahay ayaa sheegay waa exactly the same anigu wuu ugu dhacay dadka markay imaadaan corona qaba iga dheera oo ugu dhacay iga dheera mana hubo waayo lama test gareen wayba kula yaabahayaan marka dhibkaas meesha uu ka jiraa waxaan yara aan ku daraa kaliya waxay tahay information-ka dawladdu bixisa dawladda markay waxay ka soo qaaday Swedish society oo dhan waxay ula eegtay si gooni ah oo loogu habeeyay minority-ga ma jirin ama maartay ayadoo la consideration culture-ka background-kooda waxooda ma aysan jirin hal guideline ayay soo saartay dadka inay distance suubiyaan inay isolation suubiyaan dadka waayeelkaana inay maartay ka taxadiraan is isolate gareeyaan of course Swedish-kii waa dad yar ama family-gii waa labo ama saddex ugu badan afar waayeelkii guriga summer house ayaa la dejiyay oo xataa maartay marka loo soo adeego albaabka loo dhigaa cuntada lama galo marka laakiin Soomaalidii sida hore gabadha walaashay Mareykan u sheegtay hal meel ay ku wada nool yihiin waaridkii 3 generation ama 4 generation marka dhibkaas ugu weyna marka guidelines-ka looma tailor made gareyn inuu address gareeyo issue-gaas oo ah in Soomaalidii dadkan isku wada nool waayeelkii iyo wax kasta sidee marka ma jirin details mana u maleynaa xataa Soomaaliya raaci leedahay hadii jir leedahay marka intaas kaliya waa maaragtan aan kaliya aan rabo inaan ku daro wax kale oo zaa'id ah ma ay jiraan markaan dhageystay hadallada badan oo laga hadlay oo qiimaha leh waxay isugu soo ururaysaa Soomaali meel walba ay joogtaba waa Soomaali laakiin haddana waxaan u baahanaa inaan ka daalin sidii wax looga bedeli lahaa wacyigooda aan ficilin oo ku aadan cudurkan iyo wax kale oo la xiriiro badan xagga caafimaadka ah qoraalka marka aniga aan qoray waxaan aad u adkeeyay number 1 muhiimadda ku fadhida baaritaanka maxaa yeelay minute aniga aan iska shakiyay oo baaritaanka aan sameeyay qolkii aan galay ayaan lahda waxaan ku jiraa maanta waxay tahay day 14 aan ku jiraa sababta wax kala ma ahan faa'iido u horeysa oo noo leeyahay baaritaanku waxay tahay markii lagu ogaado war ummadda ka xaro soo fahmay oo meel isku xaree dadkii dhibaatada u geysay marka runtii waxay noqotay qoraalka aan qoray waxyaalaha aan ku adkeeyay inay tahay muhiim maadaama ay tahay wax ugu fiican aan haysano marka qofka la ogaado in ummadda ka xaro taa waxay tahay in ka dal aan ku celceliyo waxaan kaloo qoraalka aan ku sheegay aan soo qoray inaan u baahan lahay dabcan in wax badan lagu ogaado laga barto dad qaatirtii hadlay waxa aad ugu celceliyay wali inay nagu cusub tahay ama yar tahay aqoonta loo leeyahay cudurka isaga saaki maraan dhageysanay CNN-ka waxaa laga hadlay study laga sameeyay waddanka Spain oo laga sheekeynayay sida loo heli karo waxa lagu yeero herd immunity hadaan waa laga hadlay waxaad soo baxaysa xataa la leeyahay dadka qaarkood iyagoo oo ku dhacay ka kabsan still waxa la leeyahay antibody loo baahnaa ama xataa level loo baahnaa ama titer loo baahnaa waxa la leeyahay sida ma aha laba hubi karo inay marka xitaa haystaan inay ka baxsadeen iyaga ay ka yihiin badqab wixii ka dambaysa marka macnaheedu waxay tahay waxa weli noo dhigo baaritaan aad u fara badan marka waxay tahay aniga runtii aan ku koobaya dhinaca baaritaanka dabcan waxay tahay inaan qaybtan ka qaadano oo waana ku sheegay qolalkan soo qoray in aan research-ka qayb ka noqono gaar ahaan dadkan ka soo kabsaday oo ku dhacay bahalka ugu dambeyntii waxaan aad u adkeenayaa marrabo oo ay tahay inaan iyadana ka daalino inaan ku celcelino faa'iido inuu la prevention hadday noqon lahayd nadaafadii hadday noqon lahayd distancing hadday noqon lahayd in macnaha la xirto mask iyo wixii la midka ah marka waxaan ku koobayaa alxamdulillah aniga kan igu dhacay waxaan moodaa ilaahay inuu ii naxariistay oo hadda waa ka fiicanahay oo ka soo kabsaday alxamdulillah laakiin dad badan bas ma ka kabsan marka si aan taa u ilaalino fadlan iyeenan macnaha u arag bahalka inuu yahay qofku ku dhacay qof adduunka uga dhamaatay absolutely ma haddii ilaahu ka kacaysa laakiin waxa inoo muhiim ah dadka uu ku dhicin ama uu ku dhacay mar walba inaanu adkeeno wixii loo baahnaa oo la xiriir xagga prevention-ka hadduu lagu yimaadana ilaah naga hayo waxaa loo baahan yahay inaan ummadda iska karantiino si aan dadku badbaadino gaar ahaan dadka waayeelka ah iyo dadka jirooga kala qaba marka inta waan dhihi lahaa
gabdhaha meesha ku jiro mas-uuliyiinta sare ee dhakhaatiirta runtii waxaan leeyahay salaan qaali laga guddooma BDRC-na shaqo fiican baa wadaa fadlan halkaa ka sii wada maasantiin annaga wasaarad ahaan waxaan aaminsannahay aanan aragnayna cudurkan coronavirus ma uusan u ka aabal yeelin dadka qof walba wuu ku dhacay IDP iyo dadka caadiga yacni safmar uu ahaa dadka dhan wuu maray sida laga fikiraayo haddeertan laakiin IDPska specific ahaan markii aan isku soo qaadnay oo dhakhaatiirta la tashanay oo dadka u yeernay wax kasta oo miisharisa oo aan ka hadlaynay oo COVID-19 looga hortagi karo IDPs population ma ka shaqeyso social distancing kama shaqeyso qol yariisay 10 qof ku degan yihiin hand washing or effective hand washing ma ka shaqeynayo because limited water access ay leeyihiin bo marka laga reebo security measureska iyo waxa dhacay waxaan ka fikirnay in la sameeyo special surveillance teams oo community engagement sameeyo ilaa haddana way wadaan waxyaabaha aan isku daynay waxaa ka mid ahaa in la qoro guidance in la qoro oo annaga ma ogtahay waxaana laga rabaa guidance hay'ada ayaa jooga ka shaqeynaya IDPska oo shaqo badan wada inaan u yeerno oo guidance aan sameeyno balas inaan medical associationska loo yeero oo guidance laga raadiyo taas waa sameynay waxaanan aragnay oo indhaheena aan ku soo aragnay dadkana hay'adahana ay noo soo report gareeyeen in impactiga uu ku yeeshay markii ugu horeysay COVID-19 IDP populationka ay alarming ahayd naxtin badan oo hooyooyinka ku dhacday hooyo marka hore waxba haysanin haddana COVID-19 dadka uu dilaa la dhahay stress badan ku dhacay waxaan kale toodan xataa ka wasaarad ahaan idin wadaagi karnaa saameynta uu ku yeeshay health service-ka adeega caafimaadka inta hooyo soo doonatay OPD-ska inta soo doonan kari weysay xogtaas waan haynaa marka waan aragnay inahaas waxaan idinku darsanaynaa hal talo oo ah research centerka specific thematic research in maaragtay laga fikiro iyadana si information badan loo helo haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin waxaa jirta in COVID-19ku adduunyada daafaheeda dalalkii ay hoggaanka ka ahaayeen haweenku in ay runtii aad moodid inay la yimaadeen programyo aad iyo aad hore u mariyay oo cudurrada laga yaabo cudurka in uu laga takhalusay ama la soo dhaweeyayba inuu maxaan ku rahday siduu u fidaya uu yaraado dalalkaas oo aynu dalka ugu horeeya uu yahay maxaan ku rahday ama Germany ha ahaato ama Finland ha ahaato dalalka ay hoggaamiyaan haweenku runtii guul fara badan bay ka gaareen inay cudurkan ka hortagaan meesha Mareykanka iyo England oo kale ama UK oo kale la oran karo raggii hogaaminaya halka waxaad moodaa inay dib u dhac sameeyeen wax yar haddaad nooga taaban kartid saameynta ay ku leedahay women leadership in maxaan ku rahdayay ka hortagga maxaan ku cudurka COVID-ka wadamo Germany ay ka mid tahay New Zealand wadamo badan isla markii waxay keeneen strategies oo isla markii sidii looga hortagi lahaa lockdown la sameeyo testing tracing iyo wixii in la sameeyo dadkii quarantine macnaha waxay la imaadeen strategiyaal aad u fiican wadamadaasna haddaad fiiriso waa wadamo dumar ay madax ka yihiin ma aha coincidence laakiin waxaad arkaysaa okay waa pandemic jiradan waa la sheegay isla markii wadamadaas tallaabooyin cusub ayay qaadeen wadamo kale annaga مثلا ingiriiska markii hore prime minister wuxuu dhahaa heer immunity ka hadlaa ma la gelin isla markii lockdown wax dhimashadu ku badatay ay ka mid tahay oo hadda 45 qof ah ingiriiska ku dhintay marka laakiin 23 March marka la arkay dhimashadiina inay badanayso yaa waxa aad u qaylay epidemiologist-kii oo waxaa la yiri sidaan ma soconayso bahalka hadda heer immunity hatta lama helayo sababtoo ah haddii qofkii uu ku dhacay la ogeynba inuu mar labaad hataa ku dhici karo waxaa la sameynaya hadda antibody testingkii ina macnaha ma la helay immunity hatta dhacay ingiriiska waxaa lockdown geliyay 23 Maarch waa maalmihii aan imid ani lockdown ka soo dhacay marka waxay tabiyeen laakiin wadamadaas gabdhaha ay madaxda ka yihiin way ka sii horeeyeen waxaa laga hadlayaa wiigad maalinuu bahalka hadda waxaan u maraynayaa 12 milyan case confirmed cases marayna dadka yani sida bahalka uu ku faafay waa dhaqsi cajaa'ib leh sidii loo kala dhaqsaday
oo loo qaatay strategies loo malaynayo inay wax ka qaban karaan oo ka hortagga ah yaa horta loola falgalay annaga ingiriiska oo kale 23 March waxaa la bilaabay lockdown laakiin restrictions adag oo aan ahayn guryihiina fadhiya iyo kala dheeraada aanan ahayn oo ah waa lagu faangaraynaya ingiriiska haddii dad isu soo baxaan waa la faangaraynaya meel maqaayad haddii lumaad waa la faangaraynaya waa la wada xirxiray waxaa la soo reebay kitaabiya cuntada iyo waxyaabo yar marka maadaama ay arkeen dhimashada inay badanta waxay qaateen si waxay u howlgaleen shan adag taas waxaa ka fiicnaan lahay hal wiil ka hor hadday bilaabi lahaayeen markii dambena waxaa hagaayay response-ka la dhiibaya mar walba dowladda waxaa hagaayay epidemiology-ka hagaayay oo talooyinka mathematics modeling waxbay samaynayaan haddii measurement-igan la qaato intaas qofaa dhimanay haddii measurement-igan la qaato intaas qof macnaha mathematic modeling-kaas samaynayeen dadkaas yaa maxay ku camal falay su'aal baan rabaa Dr. Cabdirashiid wali ma nagula jiraa su'aal baan rabaa ka timid dadweynaha inaan idin weydiiyo gabadhii baynu joognaa waa soo xidhana laakiin su'aashan dhowr qof baan rabaa inay iiga jawaabaan waad iska ogtihiinoo dad badan oo dalka dhexdiisa ku nool oo dan yara baa jira oo dhaqaale aan u haysanin sanitizer iyo saabuun iyo xitaa oomo ma iibsan karaan su'aasha waxay tahay waxyaalaha dambaska oo kale ah ma la isticmaali karaa in faraha lagu dhaqdo jeermiska ma dilayaa garamayo qof expert u ah laakiin Dr. Cabdirashiid baan rabaa su'aasha inaan hardhigo hadhowtana qof kale aan weydiin doona Dr. Cabdirashiid hadaad joogtid soo gal yasmiin waa joogaa si fiican baa u maqlay su'aasha nasiib xumo intii hadda aniga aan akrinayay wixii la xiriira xagga cilmi baarista gaar ahaan fayraska isaga ah SARS-CoV-2 iyo kahortagiisa runtii ma arag kuma aragna Dr. Cabdirashiid raalli ahaada marka waxaan idhi intii aan akrinayay xogta xagga cilmi baarista maadaama aniga ahaan researcher ma arag wax ku saabsan dambaska iyo si uu faa'iido u yeelan karo laakiin waxaan ogahay qasab ma aha haddii la fiiriyo fayraskan isaga ah waxaa inooga filan haddii la hayso saabuun fiican oo faraha lagu dhaqdo waxaan aaminsanahay in ay dili karto oo ay haddii si fiican lagu dhaqo faraha ay baabi'in karto marka aragtiyada qasab ma aha inaan isku mashquulin waxaynan hubin faa'iidada anaa ka soo bixi karta صح laakiin intaan ogahay haddii saabuunta si fiican loo isticmaalo runtii waxay samayn kartaa inay bahalka ay disho oo ay macnaha baabi'iso haddii marka lagu dari karo wax kaleeto ka sii fiican oo markii lagu dhaqdo saabuunta kadibna sida alcoholka iyadana waa taxadir kaleeto dheeraad ah aad baad mahadsantahay Dr. Cabdirashiid taas waxayna tusaysaa in kulligeen inaynu isku taxallujino inaynu u sameeyno dadka dan yarta ah waxyaalo fudud oo cudurkan runtii ka hortagi kara mar haddii ay dhaqaalahoodu ku filaan oo aanay iibsan karin saabuuno iyo waxyaalo waaweyn oo sanitizer iyo waxyaalo caynkaas oo kale ah waxaynu joognaa waa gabagabadii barnaamijka waxaad dhageysanaysaan wuxuu ahaa PDRC Talks oo idinka imanaya xarunta cilmi baarista PDRC oo ku taala magaalada Garowe sida Dr. Marian sheegtay waa labeentii gabdhaha Soomaaliyeed dhakhaatiir iyo khubaraa nagala soo qayb galay ka hortagga COVID-19 iyo saamaha uu ku leeyahay sida uu saameynayo Soomaalida joogta adduunyada meel bay ka joogaanba aad baad u mahadsantihiin intii nagala soo qayb gashay waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino in uu ka soo baxayo report maxaan ku rahdayay wada kulankeenan reportkaasna aanu idin soo wadaagi doono waxaan idinkaga tagayaa in aynu noqono unit oo runtii aynu wax walba isla share gareyno isu soo gudbino macluumaadka si aynu ka hortagga cudurkan aynu runtii kulligeen baa saameyn weyn ugu yeelano aad baad u mahadsantihiin aniga waxay ahayd very enjoyable inaan hor fadhiisto intaasoo haweena oo khabiir ah oo labeentii ah aad baad ugu mahadsantihiin waqtigeena aana siiseen halganka halkaa ka sii wada weliba halganka dhallaanka iyo hablaha iyo gabdhaha Soomaaliyeed haweenka runtii halgan gooniye u baahan yihiin hal loo halgamo iyo dadka marginalized ah oo runtii u baahan cudurkan inay ka hortagaan aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adaa mudan mahadsanid aad u mahadsantahay Zamzam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة برشا وناسن كلهم برشا وناسن هاي هند مريم
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شررك لنا وانكم كل مدونا هذا سنتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.